بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan xaqiijinayaa inaan maanta xorriyadeedii helay muddo kadib maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1440 Hijriya 6/6/2020 si xora ayaan u joogaa Ilaahay baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo u halgantay in aan xorriyadeedii helo waxaan ku soo booqday gurigiisa magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faysal Ali Waraabe oo aan la joogo waxa booqashadeedu waxay ku salaysan tahay inaan u mahad celiyo warka la sheegay oo soo gaaray waxa weeye gudoomiyuhu wuxuu ka mid yahay ragay ka qayb qaatay waxa weeye waa ragay madaxweynaha u tagay arrinkan cafiska maanta madaxweynuhu yani sababtiisaan ku soo baxay ayuu leeyahay runtii mahad celinta inaan u mahad celiyo gudoomiye Faysal Ali Waraabe oo xiriir la lahaa yani ehelka xiriir la lahaa oo arrinkan muddo soo giraangirinayay maanta waxa weeye markii aan soo baxay runtii isaga fursad ismaan helin laakiin maanta waxa weeye Ilaahay mahadi mar haddaan ku soo booqday gurigiisa qofka aan dadka u mahadnaqina Allah uma mahadnaqo runtii yani Faysal abaal baan u hayaa waxa weeye horana waxaan u sheegay markii aan soo baxay hore aynu eegno waxa weeye bog cusub iyo cutub cusub aynu eegno marxaladda maanta lagu jiro oo dalku ku jiro waa marxalad laga dheregsan yahay waxa weeye inaynu aynu iskaashi iyo midnimo aynu wax qabsano oo aynu hore u socono runtii ayaan ku baaqaya wanaag oo dhan baan runtii ku baaqaya nasiib wanaag maanta gudoomiyahan ay sahlo oo intaan muuqaalkan bilaamina aan xoogaa wada sheekaysanana waxa weeye way dhacday intaasaan iga tahay gudoomiye jazakallahu khayr ilaahay khayr kuga abaal mariyo yani runtii sida yani farxadda maanta aan dareemayo adiga runtii sababaha barakallahu fiik marka ilaahay ma hadlay ilaahay subhanahu wa ta'ala xuriyadii ku siiyay ma hadlay marka kale waxaan mahadnaqaynaa waxa madaxweynaha oo in baad imaka ilaa 3 biloodba aanu arintaada ka wada hadlaynay inuu maanta ilaahay waafajiyay ayaanu mahadnaqaynaa laanu cadawga badan yahay waxa jira intaasoo kaliba loo keenayo oo dadkan saxaafaduna dadku waa soo dabada soo haystaano dad badan oo cadawga saxaafadda isku wanaagsan baa jira marka wuxuu sameeyay mataqaanaa geesinimada dastuurku siinay dastuurka sheegay siinay madaxweynuhu inuu cafis leeyahay marka saasan ugu jirnay dadaalka laakiin la qabanba in magaranaysaa codon uu noqdo citizen wanaagsan oo dantiisa dalkiisa ka shaqeeya imka waxa weeyaan dhalinyartiina saatiin waxa leeyihiin mustaqbalkiina dalkiina ku xuliyay laakiin ma dalkiina joogta tan inuu hagaajisana weeye maanta Soomaali shanta Soomaali meel maanta Soomaaliland kan nabadgeliyo wanaagsan walaal Djibouti waxa ka dhacaya xamar ma jirta Soomaaliya inanteena adkaysana weeye yani hadda Soomaaliland wax ku noqon weydid de Soomaali wax ku noqon maysid dalka wax ku noqon karta eelkaaga joog ما شاء الله تعالى وأنا مع سنة مكان سمفلك وحلا قبته كون أكسنين سمفل مجر لأن تاسات كم حاجة شيء وتكون أكسنين ده وحي أنا نجيب هاتنا ده أربعة نكون هاي عروت هذا يوحكوا في عندنا سكيورتي مستقبل كشقيسين مستقبل كانوا كل حاجة يصير وقف عين كم بينه حاجة إن شاء الله تعالى كم بالوصو إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم لو صو شقة دونا ولا قلت تهريبين لو صو تهريب إن شاء الله بس بركانو قالي على أخي طنط بإذن الله الكريم بس أول وكان فيشنك أندون إن شاء الله تعالى هل كان بس صومال ولا كحورين هل كان صومال ولا كأفلحني نمت ودن كسشنت صومال هل كان بيت هل كي صومال ولا قتل هل كان بيت إنك تعب قليني ما قال يا روح ويا خلاف كيس كده هل استعلاله نبض على قشقة تتكلم اسكهيو رحمك هبطنو رحمك أقوى marka riximkaasaan ku shaqeynay riximka kala shaqeey in dadku midoo walaalo salaatu diintan aad buu taqaanaa waliin waa diinta dabaqna kitaabka Ilaahay sunnah rasuulka alayhi salaam
kaasina dalku xukumin doona insha allahu tacaala ahlulbeyt baynu nahay ahlulbeyt marka maaha inaan secular noqono aan kitaabka ilaahay sunnaha rasuul wadna asalaamu calaykum